ma rabtaa in aad mar waliba faraxsanaato. haddii aad doonaysid in aad noqoto qof dadka kale ka soocan oo mustaqbal fiican leh, waxaa jira qodobo ay tahay in aad raacdo si aad u noqoto qof dadka kale ka duwan oo mustaqbalkiisana ifayo. kow, dhoolla caddee xilli walba, haddii aad faraxsan tahay iyo haddii aad murugaysan tahay. labo, iska iloow wixii hore ee aad ka soo gudubtay, sababtoo ah xusuusashada wixii hore dib u dhac ayay kuu keeni kartaa. hadda si fiican u dadaal si mustaqbalkaaga u noqdo mid qurxoon. saddex, ku cibro qaado khaladaadka dadka kale ay sameeyeen si aadan ugu dhicin khaladaadkaas oo aad iskaga ilaaliso. afar, dhegayso waanada dadka kale, sababtoo ah qofka ku waaniya waxaa laga yaabaa in uu hore u soo maray qodobka uu kaa waaninayo ama uu og yahay dhibka ka imaanaya. shan, ka faa'iidayso fursadaha ku soo mara, maxaa yeelay fursad hal mar keliya ayay ku soo maraysaa. lix, dadka kale ha ku daysan, shakhsiyadaada isdhis. toddobo, noqo qof daacad ah, lana saaxiib mabaadi'da kuu degsan, naftaadana ku kalsoonow. siddeed, mar walba xilliga aad ku jirto xaaladdeeda ku noolow, ha ka fikirin beri iyo waxa dhacaya. sagaal, iska cafi dadka dhibka kuu geysta, hadalka dadka kalena waxaad ka dhigataa jaranjaro aad ku gaarayso hadafkaaga. toban, dadka kale ula dhaqan qaab wanaagsan oo ixtiraam ku dheehan yahay. diinteenna islaamka waxayna faraysaa dhaqanka wanaagsan. halkaas ayaan kusoo gabagaban doonaa mawduucayna maanta. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.